asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudana ku xiran janaalkan walaalaha family waa mar kale muuqaal hor loon idinkaga diyaarinay musalsalka walaalaha xalaqadiisa 63aad faaladeeda oo dhammaystiran maalmihii u dambeysay waan maqnayn waxaan ku maqnayn telefishinka ATV ee daacud nagu soo oogay waxayna noo diidanayeen in aan kasoo hadalno musalsal lagu magacaabo Kurulus Usmaan waxayna lahayn musalsalkaas oo mamnuuc faaladiisa iyo sidoo kale inaad soo qaadatay sawiradeena lamana ogola ayay dhaheen anigana waxaan ku dhahay hore maan oga hadli jirin musalsalka oo markii koobaadeen kasoo hadalay ee bal amaan channelka noo sii waan idiin deynaynaa musalsalkiinan Kurulus Usmaan aad leedihiin kiyaan hadda ka hor ka hadli jira walaalaha uma sii wadanayaaye kaas waan idiin deynayaa markii koobaadeen kasoo hadlayay ahayd marka ciladahaas ayaan haystaa ayaa ahayd channelkan halis ayuu ku sugnaaday sidoo kale dura yar ayaa iska jiray bal han gudo galo faalada xalqada 63 oo dhammaystiran haddaba xalqada ayaa ka bilaabanaysa halkii inaga dhamaatay isla xalqadii tan ku horeysay kadib markii gabadhii Emeel ahayd ay shil gashay isla markaana ninka Cumar uu ku dul barooranayo ugu dambeyntii gabadhii Emeel ahayd waa hadlaysaa waxayna dhahaysaa walaal ayay dhahaysaa markaas kadib waxaa iman doona gaariga emergency-ga waa uu qaadi doonaa halka muuqaalkana arkayna Sarbi oo gurigooda imaaday imaada ma xume aabihiisa ayuu siinayaa furaha maadaama gaariga aabihiisa leeyahay aabihiisna wuxuu ku dhahayaa Sarbi ma caafimaad qabtaa maxaa kugu dhacay Sarbina wuxuu dhahayaa xoog ayaan u daalanay waxaa rabaa inaad saacdo guriga ayuuna galayaa Axmed Ilmaas ayaa gaariga markuu fuulis dhaho waxuu arkay gaariga inuu sil soo galay isla markaana Sarbi ayuu dib ugu laabanay wuxuuna ku dhahay wari aniga gaariga waxaan kuugu dhibay inaad wadatid oo kaliya kuuma dhibin inaad dad soo jeesisid ama meelaha aad ku dhufatid Sarbina aabihiisa wax walba u sharaxaya wuxuu ku dhahayaa gaariga cunug yar ayaan aabba soo jirsiyay ee waan ku baryayaa caawina xabsi gala ma doonaye muuqaalka xiin waxaa arkaynaa gabadha Emeel ahayd hospitaalka la keenay isla markaana ay leedahay gacantayda ayay leedahay walaal gacanta ayaa xanuunaysa Cumar ayaan laaleysaa halka muuqaalka xigan arkayno Axmed Ilmaas oo go'aansanayay in isaga Sarbi israacaan isla markaana isbitaalada dhan ay ka soo fiiriyaan gabar yar uu gaari jiray muuqaalka xigadana waxaa arkaynaa Cumar iyo kamera markana lagu soo celinayaa booliiska ayaana wareysanayaa markaas kadib Cumar booliiska wax walba u sheegaya wuxuuna u sheegayaa in asaga xoogaa weerar lagu soo qaaday walaashiina ay baaskiil fuursanayd ayna kasoo laabanaysay warshad furan oo halkan ka agdhoweyd gurigooda isla markaana uu arkay walaashiisa oo gaar u taalaya baaskiilkeeda oo gaar u yaala markaas kadib booliiska ayuu ka dalbanayaa in ninkii walaashiisa saan u galay inay daba galaan oo aysan saa kaga harin muuqaalka xigan waxaa arkaynaa gabadhii Aasiya ahayd oo imanayso aad u naxsan isla markaana Cumar ayaa dajinaya wuxuuna ku dhahayaa Aasiya stage Emeel way hadlaysaa aniga ayaa kaa huba halka muuqaalka xigaan arkaynaa Axmed Ilmaas iyo wiilkiisa oo isbitaalada mid u baaraya oo isbitaal waliba ka raadinaya cunugtii ay soo jiirsiyeen balse ugu dambeyntii isbitaalka way helayaan waxaana loo sheegayaa cunug yar in gaari uu soo jeeray isla markaana shil ay soo gashay laakiin xaaladeeda caafimaad ay aad wanaagsan tahay isla markaana Axmed Ilmaas Sarbi ayuu u sheegayaa wuxuuna dhahayaa cunugtu caafimaad qabtaa qofku arkay miyaa jira markii aad jiirsiinaysay Sarbina wuxuu dhahayaa maya haddaba Axmed Ilmaas ayaa dhahaya waa yahay mowduuc halkaas aan ku joojinayna mar haddana waan hoynaynaa sidaasna ku ilow qofnana ha u sheegin arrinkan qof inaan naga baxsan haba la wadaagin halka muuqaalka xiga arkaynaa gabadha Emeel ahayd daawooyin yar loo qoday sidoo kale gacmaha ayaa xanuunaya san hore u saadaalinayba kadibna waxay dhigtooradda ayaa dhahaysa waa la bixi kartiin hadda gurigeennana waad aadaysiin isla markaana Cumar Uljaan ayuu wada hadlayaa Uljaan oo baskoodii wata ayaa imanaya sidaas ayaa Emeel lagu soo kaxaynayaa intaysan baska soo fuulin ka hor Sarbi wuxuu ogaanayaa in gabadhii uu gaariga tiirsay ay Cumar walaashii tahay sidoo kale Axmed Ilmaas ayaa waqtigaasi la taagnaa sidaasi ayayna ku ogaanayaan markaas kadib iyagoo dhexda soo socda Axmed Ilmaas iyo Sarbi Axmed ayaa ku dhahaya Sarbow cadeyn yar miyaa jirta isla markaana Sarbi wuxuu dhahayaa haa waxaa jirta sawir aan Cumar noo garaacay aan ka soo qaadnay sawirkaasna aabihiisa Axmed ayaa ku dhahaya wariya masax duqoyn xuka ayuu ku dhahayaa intuusan qof arkin ugu dambeyntii gabadhii Emeel ahayd waxaa la keenayaa guriga ayaa la keenayaa sidoo kale wadaadii seefkeeda dhahaysa mar dambe saan oo kale ay ku sameynina ii sheeg waxa idinku dhacaya Emeel xaaladeedu iska wanaagsan halka muuqaalka xigaan arkayno yarkii beerkii ahaa oo go'aansaday beerka ayaan leeyahay waxaan ka wadaa toolga oo go'aansaday in uusan ku laaban iskuulka sidoo kale Leela ayaa ku dhahaysa in mari toolga maxaa kugu dhacay iskuulkan aadna laakiinse toolga waa mid dhawaaqaya wuxuuna ku dhahayaa aniga ma doonaa iskuulkaasi mar dambe in aan ku laabto iska soco maxaad u fahmi leedahay halka subaxda xigtaan arkayno Aasiya iyo Cumar ay soo raacaya isla markaana wadaad yaro agtooda ka agdhawaa oo CC camera haysta ay ku dhahayaan waxaa rabnaa kameradan inaad tustid
maadaama walaasheena dabcan gaari waxaa toola jiray waxaan rabnay inaan halkaa wax ka ogaanaysiis kaamiradan tus laakiin sawdaadku waa uu ka diidayaa cumarna aad ayuu u xanaaqayaa maadaama la tusi waayey kaamirada fiidiyoda ay duubtay halka muuqaalka ximaarkina gabadhii Leila ahayd oo Uljaan iyo ABK u sheegaysa in Tolga uu diiday inuu iskuulka imaado isla markaana ninkii beerka ay qabsanayaan kadib markii uu aflagaaday Tolga Leila ayaana ku dhaaysan aniga walaalkeen naga fogow saado xumeeynaysa ma jiraan muuqaalka xiin waxa arkaynaa yarkii Sarbi ahaa uu iskuulka iskeenay laakiinse aad u naxsan walaashiisa ayaa laakiin dhiirigelinaysa waxayna ku dhaaysa soo aaba kuma oranin qofna arrinkan u sheegay sidoo kale wajiga waxba aan laga daraamin halka muuqaalka xiga arkayna Senguli Orhan wada fadhiya Senguli waxay u sheegaysaa in Orhan uu ka dambeeyay inay baskan iibsato maadaama ay lacagtiisa isticmaashay Orhan wuxuu ku dhaayay lacagta ku siisay carruurta ugu qabatid markaas kadib Senguli waxa dhaysaa haddaba carruurtu ma wuxuu qabanayaa kala wax uu qabanayaa baskan iibitaankiisa carruurta buu anfacayaa muuqaalka xigana waxa arkaynaa Cumar iyo Aasiye oo imaaday waxayna imaadeen iskuulka ayay imaadeen Cumarna waxa uu soo daba kacayaa yarkii Sarbi ahaa wuxuu ka soo daba galayaa klaaska wuxuuna ku dhahayaa Sarbi xal waxaad igu sameysay maanan ilaabin saw ogow waana ka ari doonaa hadda wax yar oo kale ayaan ku mashquulsanahay balse marka waqtigeeda lama doon ka ari doonaa dhan kale waxa arkaynaa Ayla iyo sidoo kale islaantii Shiwaal ahayd oo wada fadhiya Aylaan waxa uu sheegaysaa in Suuzaan ay dhashay Cumar halkaas ayayna Shiwaal ku ogaanaysaa Cumar hooyadii inay tahay Suuzaan isla markaana Suuzaan iyo Axmed Ilmaadna hadda koor wax soo dhaxmareen halka muuqaalka xiga arkayno gabadhii Yaasmiin ahayd oo xadi doonta jawaabiye imtixaanka qasna rabtay oo baadhaysa maadada ay berito imtixaan galayaan oo kiimika lagu magacaabo filiya mise kiimiya maadadaasa oo waxay rabteenay imtixaanka hadda ay rabtay oo halkaas ay jawaabaha ka hesho laakiinse Dooruka ayaa arkaya waqtigaasina Dooruka ayaa soo u noqonaya in ay ayada macallimada ka badbaado hadii kale waa laga shakin lahaa waana la qaban lahaa halka muuqaalka ciyaarkeena gabadha Shiwaal ahayd oo arkaysa Suuzaan iyo Axmed Ilmaad oo hadlaya isla markaana halkaas ay hadallo badan ka soo jeedinaysa waxaan dhahaysaa runtii waan la yaabanahayba dadka hore isu jeclaa maantana way wada joogaan iyagoo wada faraxsan hore ay wax idin soo dhaxmaray haddana isla sidii ay wada taagan tihiin Suuzaan ayaa ku dhahaysa xisho ayaa ku dhahaysa Axmed Ilmaad waqti xaadirkan wax naga dhaxay ma jirto Shiwaal waxa dhahaysa waayay maxaa la dafiraysan cunuga dhasheen Suuzaan waxa dhahaysa anaga ma dafirino hadda ayaana qaraynaa Cumarna waa wiilkeena wax halkaasna wax dafiraada kama qabno halka muuqaalka xiga arkayno gabadha Cafra ah oo damacsan qorshe cusub laakiinse markaa Uljaan uu fahmaya waxayna rabtay daawooyin inay ku darto cuntada ay Sengul samayso laakiinse wuxuu bas wuxuu ka arkayay muraayada yar hore baska ayuu ka arkayay inay wax ku dari rabto cuntada isagana milix badan ayuu ku darayaa si sunto aysan waxba dadka uga qaadin ama daawada xun ay ku dareysay muuqaalka xiin waxa arkaynaa ninkii Caakif ahaa oo ogaanayo Cumar qofka dhalay isla markaana wada sheekaysanayeen Sefgi iyo Aasiye ayuu dhageysanayay suurday wuxuu u imaaday qoftii Suuzaan ahayd arrinkaas ayuu u sheegay wuxuuna ku dhayaa xaq ayaan u leeyahay wax walba inaad ii sheegto sidoo kale ninkaaga ayaan isaa u ogow waxaad inaad ii sheegtid arrinkan waa bad i quursanaysaa bili aadan biigama soo qaadaysid waxba agtaada kama yihi runtii waan kugu daaray Suuzaan intaan kadib ayuu dhahayaa wuxuuna go'aansanaya inuu guriga dhanbas kaga imaado halka muuqaalka xiga arkayno wax yar ka hor waxay ahayd Aasiye iyo Dooruka ayaa Yaasmiin u soo bandhigay inay caawa u timaado oo guriga Aasiye timaado isla markaana ay casharada halkaas ku wada diyaariyaan maadaama berito la isxaan galayaan Yaasmiina way ka ogolaanaysaa arrinkaasi si ay wax uga soo ogaato Cumar waxa uu qorsheynayo maadaama Sarbi iyo Cumar hadda ay wax ka dhaxeeyo oo Yaasmiin waxay gurigan u timaada ay ahayd Cumar qursiisa si uu ogaato Sarbina ay u badbaadiso marka casharka ay si fiican u wada raacanayaan waxayna halkaas ka soo ogaanaysaa Sarbi gacan yar oo ka soo dhacday oo la xirto ayaa halkaas ku ogaanaysaa in la helay waxayna isku day doontaa gacantaasina cala kulli xaal soo xado halka muuqaalka xigaan arkayno yarkii Uljaan ah uu imaaday Tolga wuuna dhiirigelinaya wuxuuna ku dhahayaa san waa lagu dhamaa adiga naftaada is dhiirigeli waxaadna ku soo laabataa iskuulka waxna iska baro intaad yar tahay waa dhowna iska shaqayso kadib qof bila aadanaba uma baahanaysid ayuu ku dhahayaa waxaan u maleynayaa Tolga inuu iskuul ku soo laaban doono maadaama yarkan Uljaan lagu magacaabo uu aad u waaniyay haddaba muuqaalka xiga waxaan arkaynaa gabadha Yaasmiin ahayd oo xadaysa gacantii yareyd
sarbi ayaa xadaysaa gacmihii sarbi يعني كمودي قعن عادي لكيس waxa loo yaqaan ma sheegi karaani adiga gacmaha lagu xirtaa waa wax madow duduuban يعني si kalan oo aqaanani waxa laga yaabaa in isagina fahmoydin muuqaalka xigan waxa arkaynaa nabhad iyo caakif oo sakhraansan wada jaasaya waqti wada qaadanaya khamre cabay wada seexday ayaan arkaynaa sida way wada halkaas ay ku wada seexdeen habeenkaasi nabhadna markan caakif maysan burinin ayay ahayd halka muuqaalka xigan arkayno caakif oo Suusan la soo heshiiyay balse habeenkii labaad isla gurigii Suusan tag markuu tay kadib furaha ayuu waayay Suusan waxay ku dhahaysaa caakif aniga ma joogo 3 saac ilaa 4 saac kadib baan imanayaa caakifna wuxuu ku dhahayaa waayahay bal wax dhiba uma arki waan ku sugayaa bal meelahan makhaayad iska fadhiisane halka muuqaalka xigan arkayno yarkii Cumar ahaayo yaro warwareersan sankiisana dhiig ayaa ka yimaada ay ahayd uu goraray balse hooyadiisa Suusan ayaa ku tiri Cumar oo wiilkayga ma doonayo inta kadib in wax kugu sii dhaco ee bal dhakhtarka noogu dhow kaale booqanay xaaladda soo ogaanay shalay ilaa maanta xarun ayaan ka dareemayaa Cumar muusan ka diidin baa wuxuu dhahay waayahay ayuu dhahay mar baad adiga rabtid waan tagaynaa ayuu dhahay sankiisana maadaama dhiig ka imaaday doctorka ayaa u tagayaan doctorkan waa u wareysanayaa wuxuu ku dhahayaa bal ii war xaaladahaaga maalmihii dambaysa dhaawac miyaa ka soo gaaray madaxa seesta lagu hayaa Cumar wuxuu dhahayaa xoogaa horta waan yar warwareerayaa habeenkii uu dambaysana dagaal ayaan galay oo 3 nin ayaa suuqay tagay markaan mid dilay labadii kale ayaa iga qabatay midda markii dambe waa uu dilayay ugu dambeyntiina iyagoo jamac oo 3 qof ayay dileen ayay u dhahayaa marka dagaalka mooyna dagaal kale oo dhow waqti xaadirkan maanan galin Cumar doctorkan wuxuu ku dhahayaa waayahay hadda koor oo dagaalka hortii madaxa miyuu wax ka soo gaaray hooyadiisa ayuu saas u eegayaa ani ahaantayda eegmadaas waxaan u maleeyay hadda koor markii ay gaariga yartiisiin gaadhay ee gaariga ku dhuftay aan u maleeyay balse inuu ka laabtayna laga yaabaa uusan doctorka rabin inuu u sheego hadda koor inuu xoogaa shil galay doctorkan waxa uu sheegayaa in xaaladda Cumar ay waqti xaadirkan iska fiican tahay waa tahay muuqaalka xiga waxaan arkaynaa qoftii goonu lahayd oo aad iyo aad u xanaaqsan isla markaana caagad ay soo qaadatay oo shidaal ka buuxo caagada markay soo qaadatay kadib waxay timid dhankaas iyo baskii Shenguul ha timaada ma xumee waxay go'aansanaysaa in ay waqtigaasi ay gubto isla markaana gaaska ay meel waliba ku daadinaysaa sidaasi ayayna ku gubaysaa balse wax yar ka hor intaysan gubin ka hor caakif ayaa u imaaday qoftan Shenguula asagoo cunto ka dalbanay sidoo kale in uu la joogo waxoogaa yar joogo kadibna goordho uu ka tago Shenguul waxay dhahaysaa waayahay wax dhibaato uma arki caakifna baska ayuu ku jiray aanu soo laabana meeshii aan soconay kadib markii ay gubtay qoftii goonu lahayd baska aad ayuu u ololayaa ninkii caakif ayaa ka soo dhaxbaxaya wuxuuna dhahayaa caawiya waqti xaadirkaas daaqada kamuusan boodi karin oo qof iska buuran waad garanaysiin albaabna dabku waa uu isqabsado dabka ma si dhaxmari karo inta yar uu joogana dabku ma hayo laakiinse wax yar kadib gaariga inuu qarxo wax yar buu u jiraa caakif hadaladiisa waxaa ka mid ahaa alxaaskayga ayaa qiyaamay sadarteed ayaa la ciqaabaya maanta jaxiiman jooga ayuu dhahayaa taloma nabhad buu ka hadlayaa Mrs. Suusan ayuu ka hadlayaa aniga waan fahmi waayay halkaas sababtoo habeenkii u dambeeyay waxa uu la joogay nabhad habeenkii ka soo horeeyayna Suusan ayuu la joogay labadaba hadda waa la heshiis labaduna way ogal yihiin marka wuxuu dhahayaa qof i maqla miyuusan jirin waan dhima rabaa waan guba rabaa i caawiyay ayuu ku waranayaa ninkii caakif ku lahaa caakifna halkaasi ayuu ku gubanayaa ma sheegi kari qof badbaadinaya bal kolay gooskooskiyo waxyaalaha kale waan ka daba taagi doonaa waata muuqaalka u dambeeyay xalqada horta waa faalada ugu yareedeen abid soo faalayno maanta waan soo koobnay oo waan qortay ayay ahayd marka muuqaalka xigana waxaan arkaynaa yarka Cumar oo bas saaran baska saarada ma xumee sawir uu urjaan ayaa filayay inuu u soo diray sawirka ayuu eegayaa markuu ay kadib wuxuu arkayaa Sarbi in uu qabo gacantii ninkii email gaariga jirsiyay halkaas ayuu ku ogaan doonaa email qofka gaariga jirsiyay in uu Sarbi ilmaas yahay Cumar wuxuu dhahayaa ballan waay markaan Sarbi igma badbaadi sidee qabrigaaga iska diyaarso inuu dhawax yar buu u jiraa ma fahanteen marka wuxuu dhahayaa ballan waay markaan igma badbaadi sidee waan ku dilayaa Sarbi ayuu dhahayaa Cumar waxa basku wuxuu keenay xaafadoodii wuxuuna isku dayayaa in uu kaco
oo gurigooda aado balse markuu kaco xoogaa madax ayaa lagaga soo boodaya asagoo xasuuso badan galaya sida email shilkeedii iyo waxyaalihii u dambeeyay dhacdooyinkii u dambeeyay dhacay iyo saarbi dhibaatadii uu geystay yacni maskaxdiisa ay ka dhex guuxayaan waxyaalahaas oo dhan markii yarkii Cumar ahaa waa uu wareerayaa halkaasi ayuuna ku dhici doonaa xalqadan halkaasi ay ku ekaanaysaa markii duri yar baa hayay ma doonin in muuqaalku nagu sii dheeraado maanta faalada intaan ay ku soo adkeeyay muuqaalka like star sidoo kale dadka channelka cusub subscribe star والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.